ويا صاحب يال جدة بقى كاسو سلامية waxaa rabaa update ugu dambeeyay suuqa insha Allah inaan idin wadaago suuqa saa u jeedaa masaaka qurux badan yahay wada cagaar weeye koonkana dhaqaaqa runtii inta ugu badan XCN plus 79% oo dhaqaaqay koonka aad loogu jiro oo runtii dhaqaaqa waxaa kamid ah koonka loo yaqaan Tau ama Python Sword waa koonka ugu qaalisan ee ay markay noqoto qiimaha waa kana koonkan saaxiib yaal Python Sword iyo waxa weeye ama Tau loo soo gaabiyo waa $400 marka qiimo ahaan dhaqaaqa ugu laakiin market cap waxa ugu horeeya NIR protocol waxa ku xiga internet waxa weeye computer ama ICP render baa saddex ku jiro price-ka markay noqoto market cap ka wada Python Sword waa kan afraad market cap all the time haygiisana waxaan filayaa 700 ka badan buu ahaa isbuucan saaxiib yaal waxa aad looga hadlay waxa loo yaqaan blockchain-ka tusaale kale hadda Elon Musk oo kale hay'adan Doge madaxa u ah madaxweyne Trump magacaabay wuxuu soo jeediyay in laga faa'iideysto waxa weeye technology-gan casriga blockchain oo technology ugu fiican oo qaranka la tukada aan soo socday marka wuxuu leeyahay government spending waa yeelan kara hadii la isticmaalo technology-gan marka saddex qayb ku soo koobo soo hay'adan Doge waxa weeye madax ka ah waxyaalo xusuus saaxiib yaal waxa kamid ah hadii la isticmaalo blockchain-ka in waxa weeye secure data la sameysanayo tusaale kale sa ogtii saaxiib yaal blockchain-ka technology casriga waa very mataqaana secure macnaha waxaan forgery lama sameyn karto tusaale kale hadda smart contract hadda NFT-ga dunida casriga hadda loo guuriyo kale contract laba loo qabiyaa marna waa smart contract marna waa traditional contract traditional contract waa contract caadiga Soomaaliya dad dhul isku haysto oo qof walba sabr looga wato waxaas in traditional document baa la dhahaa bin aadan baa sameeyay soo kaliya waxa way qofka uu copysan kara ama forgery document uu sameeysan kara laakiin smart contract blockchain ka baxda lama copysan karo contract smart contract lagu sameeyay blockchain ka cid copyin kara dunida ma laha marka waxyaalaha laga faa'iideysan karo xitaa waxay leeyihiin doorashooyinka dadka mataqaanayo blockchain ka hadii lagu sameeyo waxa weeye waa very secure waana very transparent marka wixii secure data ahaan waa laga faa'iideysan karaa waana sax tusaale ka hadda cryptocurrency hadii aan lacag ku soo diro hadda crypto lama soo celin karo waxa weeye oo refund ma lahan crypto macnaha waa waxa weeye qaabkaas u shaqeysa wax la koobiyeysan karo ama wax mataqaana blockchain-ka runtii ma aan ama qofka akoonkiisa la xadi karo waayo blockchain-ka shaqadiisa waa inuu waxa weeye secure gareeyo waxa uu transaction kasta iyo wax kasta wuxuu kaloo saaxiib yaal soo jeeday in looga faa'iideysan karo paymentska bangiyada sababta uu necab yahay blockchain-ka waa intaan weeye payment-ga asaga runtii uga fiican markay noqoto dhanka ammaanka markay noqoto dhanka raqiiska way bangiyada lacag ka sameeyaan waxa weeye waa middleman laakiin blockchain-ka middleman ma jiro intermediate ma jiro taas Americans inuu waxa weeye uu ka jabay soo hadda Bitcoin oo kale mashruuc weyn uu hadda wada Soomaaliya waa peer to peer transaction oo ah in si toos loo lacag isku diri karno oo adana ma taqaana without intermediates ama bangi noo dhaxayn ama qof kala shakhsi middleman noo dhaxayn baajo marka mashruuca waa laga faa'iideysan karaa buujinta aad buu sameeyay sidoo kale sahbal move ugu horeeyay ee qaadeen Doge waxa weeye website bay sameysteen website-kooda marka waxa ajiiba waxay looga uga dhigeen Dogecoin maadaama Elon Musk uu koonkan favorite coin u yahay Dogecoin bay waxa ka dhigteen calaamada waxa weeye runtii sameynta Dogecoin isla markaas uu kacay 0.37 buu tagay inkastoo hadda inuu soo laabtay aan filayo oo 35 u maray laakiin markii uu sameeyay qaabkaas runtii Dogecoin uu dhaqaaqay looga dadkana by the way sidoo kale saaxiib yaal waxa blockchain-ka aad uga hadlay co-founderka Binance ninka loo yaqaan ZZ asoo la dawladaha waa inay mataqaana ku taragarayaan qarashka ku baxo blockchain-ka ama spending-kooda blockchain-ka waayo waa runtii waxa weeye waa aad u horumarsan yahay marka isbuucan blockchain-ka aad baa runtii looga hadlay bangiyadana ma jecla blockchain-ka oo shaqooyinka hadda hayaan buu qabanayaa wuuna ka jaban yahay wuuna ka secure yahay waana very transparency oo qof kastaba waxyaalo saaxiib yaal blockchain-ka hadda cajiib ku yahay waxa kamid waxay ku leeyihiin marka tusaale u soo qaadayaan dawladda Mareykanka kale halka dollar meesha ku bixiso waxa meesha ku isbanagareys dadka si toos adoo shaashad guriga mobilkaaga ama computerka ama TV guriga ka daawanayo hadii lagu dhaqo dawladda wadankaaga dawladda joogto halka dollar meesha ku baxayna si toos loo arkaya oo halka dollarkaas ku bixisay halka dollarkaas ku bixisay macnaha waa 100% transparency qaabkaas weeye blockchain-ka waa qaabkaas marka waxay leeyihiin qaabkaas ha loo isticmaalo oo meel hadda meelaha lacagta lagu bixiyo lama yaqaan dawladda report bay iska soo saartaa oo dhays intaas ku bixin musuqmaasuqna wuu jiri karaa wayna dhacdaa dawladaha waxa weeye waliba Afrikaanka ay xoog u isticmaalaan laakiin blockchain-ka hadii loo guuro $1 kasta shaashada ka daawanaysa every $1 shaashada ka daawanaysa marka qofka report baxta loo baxna markaas si toos looga daawanaya marka blockchain-ka waa very transparency weeye aad bin runtii waxa weeye
waxa way dadka shacabka u rabaan laakiin dawladihii baan runtii weli aan weli barnaamijkaasi rabina sameeyo maybe dee musuqmaasuq qodar iska jiraan marka waa arki doonaa saaxiibayaal blockchain waxa ka soo cusboonaa saaxiibayaal sidoo kale BTC waxa maraysaa 104,000 bay maraysaa runtii dominance BTC saaxiibayaal uu dhici lahayd dadka waxa isweydiinayaan goormee la gelaya altcoin seasonkii weli ma bilaabana altcoin seasonkii haddana January waa dhamaatay qaybadka waxa leeyahay okay February wuu bilaabanaya because BTC baa waxa weeye weli lacagta kama soo bixin qaybna dadka waxay leeyihiin sanadkan ba amuusa altcoin lacagta ee sagali doonin maadaama iska fuudaatay mataqaana in meme coins waa la iska samaysanaya tokens waa la iska samaysanaya berigoor saas ma ahaan jirin berigoor coin badan lama waxa weeye lama soo shaacin jirin oo lacagta marka waxa uu yaraan jiray BTC marka lacagta ka soo baxday dominance-geeda altcoin soo gali jirtay marka baa la faa'iido jiray laakiin dadka waxay leeyihiin sanadkan sida hore ma ahana coin badan baa la sameeyay maalintii kumanaan coin baa la sameeyaa meme coins baa la iska sameeyay marka lacagtii BTC ka soo bilaabay qodobka kale saaxiib ay leeyahay sanadkan altcoin ku lacagta inuu dhaco waxa kamid ah BTC aad loo gadanaya shirkadii BTC aad u gadanaya dominance uu yaraan la yahay marka waa leeyahay horta goorta la arki doono in altcoin seasonkii BTC waxa loo malqashanaya ani marka soo idin sheega portfolio-ga markasta BTC u badi BTC hoos ka si Bitcoin iibso weligaa BTC ka shakinin you never know waxa weeye in alt season goorta la gaari doono sidoo kale saaxiibayaal koonka Ethereum $3,440 buu maraya runtii dhaqaaq aad u weyn ma jiro Solana xoogaa dhaqaaqay oo 4% dhaqaaqay $258 taagan dhaqaaq kale saaxiibayaal zaa'id ma jiro Avalanche sidoo kale asna dhaqaaqay dhanka la saaxiibayaal newska hadii aan fiirino nimanka imaaraadka horta waa la qaban lahayahay real estate-ka ayaga horta hoggaan dunida u ah haddana move weyn bay dhaqaaqeen waxa dhigeen real estate-ka hadda waxa lagu iibsan karaa Bitcoin iyo Ethereum iyo guud ahaan cryptocurrency marka waxa weeye digital assets-ka waxa dhigeen waa lagu iibsan karaa properties-ka ama hantida marka waxa moodaa imaaraadka gaar ahaan magaalada Dubai in waxa weeye Bitcoin ta xoog iyo cryptocurrency soo jiidinayso waan xarunteeda bay dhawey aad ba shirkadaha badan halkaas bay u guuraan waa friendly way crypto leeyihiin marka nimanka imaaraadka waxa dhigeen hantida waa lagu iibsan karaa sidoo kale saaxiibayaal co-founderka Binance Citadel wuxuu soo qoray the currency of AI is crypto waa dareemi kartaa marka dunida hadda waxyaalaha loo guuriyo waxa kamid ah technology-ga AI-ga iyo blockchain-ka iyo mataqaana cryptocurrency ba hadda loo guuriyo marka lacagta la isticmaalo doono wuxuu dhahayaa waa cryptocurrency haddii aad xasuusataan NFT-gi 21-kii iyo 20 ka calsana lacagta la isticmaali jiray oo ka shaqeyn jiray meesha waxa koonka Ethereum NFT-da ana Ethereum kaliya baa wax lagu kala iibsanayo cryptocurrency ah marka waa dareemi kartaa marka qaabkaas ay u socoto marka lacagta ee ayada wuxuu yiri waa BTC sidoo kale saaxiibayaal founder Coinbase wuxuu sheegay BTC inay tahay digital gold asoo waxa weeye for governments to hold but I think it's clear at this point that Bitcoin is a better form of money than gold it is provably scarce just like gold but it's more portable and divisible so you can actually use it has higher utility I would say and it was the best sidoo kale saaxiibayaal sanatarad kamid ah sanatarada Mareykanka ayaa iyadana waxa sheegtay BTC in gold marka waxa weeye in aad it is permitted surely you've heard that Bitcoin is digital gold because it is limited to 21 million Bitcoin ever to be mined. It is permissionless, and which means you don't have to rely on a third party or trusted third party to do transactions in it or to hold it. Absolutely in koy 20 milyan inta supply-yada inaad qof u doow fariisanay ama shirkad ama bangi ama dawlad oo qof ku dhex jirin beerun saaxiibayaal aad uga hadashay marka ya saaxiibayaal BTC hadda waxay gaadhay 100 iyo shaq ma saaxiibayaal gaadhay runtii lacagta aad bay ugu socotaa wixii update saaxiibayaal waa ila wadaagi doonaan aad u mahadsantiin